Odayn war degdeg ah hadda naga soo gaaraya dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in sheekha caanka ah ee lagu magacaabo Sheekh Yamani oo dalka Mareykanka uu fadhigiisu yahay la sheegay in uu isdaba mariyay lacag cashuur ah oo dowladda dalka Mareykanka taas oo markaasi ka dhigan in uu isaguna qirtay dambigii in uu galay cashuurtaasina uu isdaba marin ku sameeyay waa sheekhane. Maxkamadda ayaa maalinimadii shalay la soo taagay waxa uuna maxkamadda ka hor qirtay in uu kiiskaasi galay uuna cashuurtaasi isdaba mariyay. Cashuurta ayaa waxa lagu sheegay cashuur aad xad dhaaf ah. Waa sheekhi ugu horeeyay ee inta taariikhda intan warbaahinta iyo sidoo kale wararkaba tabinayay. Waa markii ugu horeysay ee sheekh Soomaaliyeed oo dadka inta badan soo gudbiya wacdiyo aan ku arkay isagoo maxkamad ka qoranaya ka qiranaya dambigii uu galay oo maxkamad loo soo saaray inuu qirto. model sheekhan waxa la yiraahdaa Sheekh Yamani waxa la sheegay in dambi aad iyo aad u culus loo haysto waa dalka Mareykanka waxaana loo haystaa in uu cashuur ama lacago uu isdaba mariyay maxkamadda horteeda ayuuna ka qirtay markaasi dambigaasi isagoo sheegay inuu dambigaasi galay yacni marka laga hadlayo dalka Mareykanka dadku inta badan dambiyada ay galaan ama ha noqdeen kuwa fudud ama ha noqdeen kuwa culusbe dambi kasta waxa jira mid la maro ciqaabta sidoo kale kuwaan la marinba dambiga uu sheekhani muqurtay ama dhaxgalay waa dambi la sheegay inuu cashuur aad u fara badan uu isdaba mariyay kaga sii daranay markii maxkamadda la keenay gartiisa loo dhaqaaqay ayaa waxa la sheegay in cashuurta uu isdaba mariyay markaasi ay run tahay uuna cashuurta isdaba mariyay isagoo og walina inuu cashuurtaasi uu isdaba marin ku sameeyay arintan waxay keentay in markaasi la xiro oo ilaa hadda uu xiran yahay sheekhani waa sheekh guud ahaan bulshada Soomaalida dalka Mareykanka caan ka dhex ah waana sheekh in badan wacdiyada soo gudbiya sheekha arintani waa arin dhacdo naxdin badan marka si laga hadlayo oo waxay naxdin badan u tahay waa sheekh bulsho badan oo Soomaaliyeed ku xidhan tahay Sheekh Yamani ayaa naanistiisa la yiraahdaa waa sheekh bulsho badan oo Soomaaliyeedna garanayso arintan ayaa hadii processka hadda uu socdaa inkastoo isagu uu marag isu noqday ama looyariintii u doodaysay oo kale ay wajigabax ku noqotay in qofkani sifaalaadka dambiga fududeeya in loo fiiriyo inkastoo ay ku doodayeen qareenadii haddana maadaama xoogay nin diinta islaamka u xildheer yahay oo sheekhna yahay wuxuu markaasi gabi ahaanba dhex galay ama qirtay dambigii lagu soo oogay oo ahayd inuu cashuur aad u fara badan isdaba mariyay arintan ayaa waxa laga yaabaa in uu ganaax amase uu markaasi ciqaab xabsi uu markaasi ku dhacdo balse daawadayaal wax wara oo hadda ka soo baxay dowladda Mareykanka ama dadka kiiskan gacanta ku haya ma jirto wadayaal sheekhan waa sheekh Soomaaliyeed ma jeclayn inaan warkiisa sidan oo kale u tabiyo balse waa dhacdo marka laga hadlayo xaqiiqa oo dhacday dalka Mareykanka ka dhacday ilaahay ka soo daayo maadaama qof muslina oo sidoo kale culimada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah inta badan internetka iyo social media wacdiyada ku soo gudbiya oo ahaa marka waxaan rajaynayaa in ilaahay ka soo furfuro cadawgaasi wuxuu ahaa sheekh Soomaaliyeed oo si weyn baraha bulshada gaar ahaan dalka Mareykanka caan uga ah waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan sii share gareysaan una soo ducaysaan sheekhaasi oo gacan markaasi af libaax leh u galay oo la sheegay inuu arintani uu ku mutaysan karo ciqaab aad u adag wixii war ee ka soo kordha halkan ayaan dib u soo gelin doonaa